2025 hawl baan qaban doonaa 2025 ilaa 2030 hawl baan qaban doonaa 2030 iyo 2035 hawl baan qaban doonaa 2035 iyo 2040 hawl baan qaban doonaa 2040 iyo 45 hawl baan qaban doonaa 2045 iyo 2050 hawl baan qaban doonaa sidaas aan uga jawaabi doonaa su'aashii oo soo jeediyay madaxweynuhu oo ah Soomaaliya maxay qaban doontaa sodonka sano soo socda waxaan qaban doonaa sida ugu horeysa Soomaaliya waxaad ogtii waa dal aad u ballaaran oo meel muhiim ah adduunka kaga yaala laakiin nasiib darro hoggaan xumo iyo talo xumo ku dhacda darteed waa wadan kala daatay qodobka koobaad oo u baahan yahay dalkaas waa in dib la isugu doono oo loo qabto dib u heshiisiin oo sax ah dib u heshiinta sida loo qaban doono iyo waxa ka dhalanaya waa sheegi doonaa taasi waxay nagu qaadan doontaa 2000 hadda xilligan aan joogno ilaa 2025 2025 markaan gaarno aan heshiino waxay dadkeenu u baahan yihiin in laga qaado hubka oo dad hubaysan dawlad looma sameyn karo qaranna ma noqon karaan dad hubaysan marka waa in la keeno dad hubka laga dhigo sida ay wuxuu isugu xiran yihiin waxaan u sheegi doonaa dhalinyaraatiin ama odayaal anoo kale tiino waxa soo sameysna waxa waaye waxaan qaban doonaa haddaad doonaysid inuu wiil ama gabar ay ku dhashaan marka hore gabar ayaa la shukaamiyaa kadib waa la doonaa waa la nikaaxiyaa waa la gurigeeyaa waa laga dhaqmaa markaasi wiil iyo gabar dhashaan dawladnimada Soomaaliya sidaas oo kale ku doonayna sida ay isu daba socdaan ma aragtay gabar waa la heshiiyaa waa la doonaa waa la nikaaxiyaa guriga la geeyaa waa laga dhaqmaa markaasi wiil ama gabar dhashaan saas miyaanay ahayn sidaas oo kale aqligaas oo kale marayna waxa laga yaabaa 30 sano inay idin la dheer tahay laakiin ogaada 30 sano aan jahwarka ku ahayn iyo 30 sano wax ku soo dheelna waa yesterday waa shalay u ogaada marka hadda la rabaa inaan ka fikirno marka waxa la rabaa marka labaad waxay noqonaysaa 2025 ilaa 2030 shantaas sanadood waa inaan ka shaqeynaa inaan hubka iska dhigno dad hubaysan dawlad ma noqdaan marka la gaaro 2030 marka la gaaro waxaan nagala rabaa dadkeena inaan tirino dad aan tirsanayn looma sameyn karo qorshe qaran looma sameyn karo iskuulka looma qorsheyn karo isbitaalka looma qorsheyn karo jidka looma qorsheyn karo mushaarkay waxbarashada looma qorsheyn karo wax loo qaban karo ma jirto marka dadka Soomaaliyeed waa in la tiriyo mid kasta waa ku soo laaban doonaa iyo faa'iidada uu leeyahay marka la gaaro marka hadda marka naqan joognaa hadii aan 2005 iyo 30 aan joogno waxaan joognaa 40kii dadkeenu marka waa tirsan yihiin 2040 markaan joogno marka maxaan qaban doonaa markaas waxaan qaban doonaa dadkeena waxaan u sameyn doonaa political parties xisbiyo ku dhisan aragti siyaasadeed ayaa la sameyn doonaa marka la gaaro 2045 marka la joogo waxaan qaban doonaa doorashooyin oo aan lahayn oday nabadoon iyo musuqmaasuq iyo in adeer iyo aan qaraabo lahayn aan qaban doonaa 2050 waxaan dhisi doonaa dawlad sax ah oo leh legitimacy iyo accountability dawlad sax ah oo haysata sharciyad oo la xisaabtami karo ayaan dhisi doonaa markaas ayay Soomaaliya waxay noqonaysaa wadan oo dimuqraadi oo welfare state oo lamida Sweden iyo Norway oo kale ama ka fiican dib u soo laaba marka waxaan dhahnay koow dib u heshiisiin labo hubkoo la iska dhigo saddex dadkoo la tiriyo afar xisbiya siyaasadeed shan doorasho saxa iyo dawlad dadka iyo dalka u adeegta okay dib u heshiisiintu imaad marka maxaa laga heshiinayaa saasa su'aal dib u heshiisiintu waxay ka kooban tahay laba qaybood sida aad hadda u fadhidiino shacab iyo madax u tihiin elite iyo society dadka elite-ka oo nukhbada ah waxay ka heshiinayaan Soomaaliya dawladda ay noqonayso waxay ka heshiinayaan constitution-ka ama dastuurka ay ka heshiinayaan waxay ka heshiinayaan dalku structure-ka political system-ka dalku oo qaadanayo hadday tahay vertical oo istaag ah sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha qaabka ay kala noqonayaan hay'adaha mataqaanaa fulinta sharci dejinta iyo garsoorka dawladdaas sida ay noqonayso oo ah horizontal iyo mataqaanaa iyo vertical oo noqonaya dawladda dhexe iyo haddaad doorataan maamul goboleed ama aad doorataan federal aad doorataan xiriirka ka dhaxaynaya xarunta iyo gobolada kale kamid ka dhaxaynaya
iyo haddaad doorataan isla laftigiisa centralized waa dooran kartaan laakiin centralized waxaad dooran kartaan oo soft ah oo midka hadda jira ka fudud. By the way waxaa la rabaa in la sameeyo dowlad lagu aasaasayo dastuur heshiis lagu yahay, dastuurkaasoo qashin baxsan oo midka haddoo kale aan ahayn oo ayna madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu sida ay ku imaanayaan sida lagu magacaabayo ayna qoorta iskula jirin, hay-adaheeda saddexdaa ay kala baxsan yihiin, baarlamaanka uu madax bannaan yahay, hay-adda fulintu ay accountable u tahay baarlamaanka, garsoorku uu madax bannaan yahay oo nadiif ah waa in la suubiyaa oo laga baxaa waxyaabaha isku dhex jiro laisku duulayo lees qabsanayo oo lees gadanayo oo aan wax macno ah aan lahayn. waa in laga baxaa oo sameeyaa political system oo saxa sida lagu dhisi lahaa waa in laga heshiiya. kaas waxaa waaye waa on the top iyo elite-ka. waxaa kuu soo haray society level, dadka Soomaaliyeed iyagoo walaalo ah oo wax dhibaata oo isku hayaan aysan jirin ayaa waxaa isku diray elite-ka ayagoo danaynaya ama raadinaya dad iyagu ay leeyihiin. markii la isku diray marka shacbiga Soomaaliyeed dhibaato kala gaartay, intii dhimatay Allahu raxmado, inta dhaawacna Allah caafiyo, inta nool ayaa waxaa jira marka property ayaa hanti ayaa kala maqan, hadday tahay guryo, hadday tahay beero, hadday tahay gaadiid, hadday tahay garaash, wax alla wixii ay suurtagal tahay oo qof Soomaaliya uu ka haysto qof kale oo Soomaaliya waa in loo celiyo si dadkeena isu aqbalaan. haddii marka aan ku guulaysano marka qaabka aan dawladda ka dhigayno oo dawladda ay noqonayso hadda wax badan oo aad arkaysid oo problema oo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe laftigeeda iyo jahawadaadka jiro dhan waxay tahay elite-ka ama madaxda Soomaalida ama dadka Soomaaliyeed ee la rabay inay qabtaan hoggaanka ayaan waxayna isku aragti ka ahayn qaabka ay noqonayso dawladda Soomaaliya ee mustaqbalka sida ay noqon doonto. marka waa in la helaa dawlad aragtideeda loo dhan yahay oo si sax ah loo suubiyay oo aan marka la suubinayo aan loo sameyn aragti qabiil iyo gobol iyo dana gaar ee loo sameeyo ilmaha dhalan doona 30 sano ka dhac. haddii marka intaas aan sameeyno oo aan dawladda dadka say noqonaysa aan ka heshiino, bulshadan aan heshiisiino, waxaan haynaa aasaaskii ugu horreeyay oo ah oo dawladnimada u aasaaska waxaa la yiraahdo luqada Ingiriiska u dhaho political agreement, isfaham siyaasadeed oo abuuraya deganaansho siyaasadeed ayuu abuuraya. nambarka labaad waxaan dhahnay haddii la heshiisiyo dadku ay heshiiyaan, hadda reerahu iyo mataqaanaa goboladu waxay kala haystaan taangiyaal iyo maalmaha waxaa arkaya doraad waxaa arkaya TV-ka arkaya meel oo la tegayo xeeraale waxaa la dhahay hubaa la soo wareejiyaa, markaasaan beebayaashii oo xoogga dalka aan meesha uga jeeda beelaa haysata. marka meel beel ay beeba haysato dawlad lagama dhisi karo waqtigaan la iska qaadin. marka waxaa la rabaa laakiin beeshaas ama reer xeeraale beebaha waxay u haystaan kuwa kale kusoo duulaya agtooda kusoo duulaya. marka waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed inay ka dhex baxdo cabsidu oo hubka ay marka ay soo wareejiyaan. hubka markay soo wareejiyaan wuxuu aas u yahay in la dhiso ciidan qaran national army. national army wuxuu muhiim u yahay hadda now aan joogno Soomaaliya lama dhihi karo state waa dawlad lama dhihi karo Soomaaliya. sababtu waxay tahay state-ka waxaa la rabaa dhulkiisa iyo dadkiisa inuu kontaroolo oo xuduudda u xiran tahay. saakay ama galabta xuduudda Soomaaliya iyo Djibouti waa furan tahay, xuduudda Soomaaliya iyo Ethiopia 1600 kilomitir waa furan tahay, xuduudda Soomaaliya iyo Kenya 608 kilomitir waa furan tahay, xuduudda badeed ee Soomaaliya oo aan xisaabteeda cid taqaana aan jirin 3300 ah laakiin waa ka badan tahay waa furan tahay, airspace-keedana waa furay. sababtu waxay tahay malihin national army oo waardiyeeya malihin. marka waxaa la rabaa inaan dhisno ciidan qaran oo waardiyeeya territory-ga Soomaaliya ama dalweynaha Soomaaliya oo ka dhiga security-giisa suga baddiisa iyo dhulkiisa iyo cirkiisa oo la qoraa wiilasha Soomaaliyeed oo sidii la yaqiinay ciidamada loo dhiso. ciidankaasuna bishardi waa inay ahaadaan ciidan aan siyaasadda faraha la gelin ee ay noqdaan ciidamo dalka iyo diinta difaaca waa ay noqdaan. markaas waxaan haynaa ummad oo ku heshiisa siyaasadda, waxaan haynaa ummad leh difaac. markaa waxaan noqonaynaa state baan noqonaynaa. marka hore waxaan nahay nation, markaana waxaan noqonaynaa state, qaranaan noqonaynaa. markaan qaran iyo state noqono dadku waxaa laga yaabaa inay isaga daran yihiin qaran iyo state, laakiin qaran iyo state, qaran waxaa ah dad meel degan oo dhaqan iyo diin iyo taariikh wadaago oo dhul degan waa qaran, laakiin state ma ah. state-ku waa marka ay sameeyaan political
mataqaanaa form ama political establishment ay dowladda ay sameeyaan oo caalamka kala aqoonsado oo ay ku noqdaan qayb ay ka noqdaan international systemka ama systemka adduunyada ay qayb ka yihiin oo lala macaamilo oo cid kale dadka la macaamiltamaan marka markaas oo aadana waxaa la rabaa inaad xuduudaada ee dhulkaaga iyo dadkaaga aad xukuntid marka ciidan qaran wuxuu la muhuraan u yahay in aan samayn karno dhulkeena iyo ciidan markaas 10 sano ayaa waxaa nooga baxday meeshaas inaan heshiino hubka iska dhigno ayaan ciidamada qaranka gudubno marka haddana midda saddexaad waxay tahay kansas ummadda waa in la tiriyo dadka Soomaaliyeed waxaa la yiri waa beel 4.5 qolo kasta reer qurac waxay yiraahdeen anagu waxaan nahay 1 milyan laakiin reer qansax 6 yaa qaaday reer qansaxaad u tagay waxay ku leeyahay anagu waxaan nahay 1 milyan laakiin reer qurac 6 yaa qaaday midda kaliya oo looga bixi karo waxay tahay dadka Soomaaliyeed in la tiriyo beelna ama qabiilna waa group of people waa majmuuca min al-bashar waa koox dad wax dhibaato ma leh berbera hadii la tago dad Soomaaliyeed degan Gabiley hadii la tago Soomaaliyeed degan badhaadha hadii la tago Soomaaliyeed degan qardha hadii la tago Soomaaliyeed degan cadala hadii la tago Soomaaliyeed degan waxay u baahan yihiin oo kaliya laba shay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin cadaalad iyo adeeg bas